dowladda Kenya ayaa amar ku bixisay in dhammaan dadka qaxootiga ah ee ku sugan magaalooyinka ay dib ugu laabtaan xeryaha qaxootiga ee Dadaab iyo Kakuma arrimo la xiriira dhanka ammaanka ee magaalooyinkaasi oo qatar galay sida warbixintan uu noogu soo diray waryaheena Ibrahim Nageedo Cawaale. war qoraal oo ka soo baxay wasiirka arrimaha gudaha dalka Kenya Joseph Olelenku ayaa lagu amray dhammaan dadka qaxootiga ee ku nool magaalooyinka waaweyn ee dalka inay ku laabtaan xeryaha qaxootiga ee Dadaab iyo Kakuma. wasiirka ayaa sheegay in goobo cusub looga diyaariyay labada xero si ay u degaan dadka hadda magaalooyinka ku sugan. Olelenku ayaa sheegay in aysan dawladdu ogolaan doonin in qaxooti ay ku noolaadaan meel aanan ahayn xerooyinka loogu talagalay ee Dadaab iyo Kakuma. wuxuu intaasi ku daray in tilaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono cidii u hogaansami weysa amarka cusub ee dawladda ka soo baxay. hadalka wasiirka ayaa sidoo kale lagu sheegay in la xiri doono dhammaan goobaha qaxootiga laga diiwaan geliyo ee ku yaala magaalooyinka Nairobi, Mombasa iyo Isiolo. ma jirto waqti cayiman ee loo qabtay dadka qaxootiga ah inay ugu guuraan xeryaha Dadaab iyo Kakuma. wasiirka arrimaha gudaha ayaa sidoo kale dadka Kenyaanka ugu baaqay in ay soo sheegaan haddii ay arkaan qof qaxooti ah oo magaalooyinka ku sugan ama sharci la'aan ah. arrintan ayuu wasiirku ku sababeeyay sugidda ammaanka magaalooyinka waaweyn oo uu sheegay inuu khatar badan soo wajahday xilliyadii ugu dambeeyay. dhinaca kale wasiirka ayaa sheegay in 500 oo askari oo dheeraad ah lagu diray ciidamada booliska ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa si amniga loo xaqiijiyo. amarka dawladda ee ku aadan qaxootiga ayaa imaanaya kadib markii axadii la soo dhaafay koox hubeysan ay weerar ku qaaday kaniisad ku taala deegaanka Likoni ee magaalada Mombasa halkaas oo lagu dilay 6 qof. sidoo kale booliska ayaa sheegay in ay qabteen isniintii la soo dhaafay 2 nin oo watay gaari ay ka buuxeen walxaha qarxa. bishii Janaayo ee sanadkii hore 2013 ay dawladda Kenya cambaarin xooggan kala kulantay hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha kadib markii ay amartay in qaxootiga magaalooyinka ku laabtaan xeryaha qaxootiga. amarkan cusub ayaa saameyn weyn ku yeelan doona Soomaali fara badan oo qaxooti ah oo ku nool magaalooyinka waaweyn ee dalkan Kenya gaar ahaan magaalada caasimadda ee Nairobi. Ibrahim Nageedo Cawaale, Universal TV, Nairobi.